wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni qubanaha VOA barnaamijkeena oo ay idinla socodsiinayaan anigoo ah Maxamed Colaad Xasan iyo Falastiin Axmed Imaan waxa qodobada aan idinku hayna kamid ah ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo al-shabaab ka qabsaday magaalooyin ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya laakiin guul daradani ma wiiqi doontaa al-shabaab beeralayda Soomaaliya oo markii ugu horeysay raashin ka iibiyay hay'adda WFP si ay ugu qaybiso dadka ku tiirsan gargaarka hay'addaasi baabuurta caalamka oo mustaqbalka dhow la sheegay inay yeelan doonaan qalab casri ah oo darawallada ka caawin doona in baabuurtu ay kaligood iswadaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan aan ku bilownay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ayaa ururka al-shabaab ka qabsaday magaalooyin dhowr oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha kadib markii ay toddobaadkii hore bilaabeen guluf military Mareykanka oo soo dhaweeyay howlgalladan ayaa sheegay in tani ay horseedi doonto xasilooni Soomaaliya ka dhalata haddaba howlgalladani ma soo afjari doonaan awoodii ururka al-shabaab Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintan soo jeedinaya gulufkan military ee bilowda toddobaadkii hore ayaa ciidamada huwanta waxay al-shabaab kaga qabsadeen magaalooyin iyo goobo ay ka mid yihiin Xudur Rabdhuur Waajid Buurdhuubo iyo magaalada muhiimka ah ee Buulaburte oo ahayd magaalada kaliya ee ururka al-shabaab uu ka haystay gobolka Hiiraan isagoo ka hadlaya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas K waxa uu sheegay in gulufkan uu yahay kii ugu weynaa ee AMISOM ay qaado tan iyo markii Soomaaliya ay tageen An expanded AMISOM and Somali National Army are prosecuting a renewed offensive. ciidamada AMISOM oo tiro ahaan la kordhiyay iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa wada weeraro baaxad leh oo ka dhan al-shabaab howlgalladaasi waxa suurta geliyay qaraarkii qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 12-24 wuxuuna noqonayaa weerarkii ugu muhiimsanaa juqraafi ahaan howlgalkii military ee ugu baaxadda weynaa tan iyo markii uu Soomaaliya ka bilowday howlgalka AMISOM Mareykanka ayaa taageeray howlgalladan military ee ka dhanka al-shabaab waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in tallaabadani ay gacan ka geysan doonto fidinta amniga iyo xasiloonida Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sahay waxay gaarsiisay ciidamada dawladda Soomaaliya ee ka barbar dagaalamaya kuwa AMISOM waxaana taliye ka tirsan ciidamada Soomaaliya uu sheegay in tani ay kor u soo qaadayso moraalka iyo niyadda ciidamada Soomaaliya dawladdu way noo dadaashay UN-ku way noo dadaaleen shacabka iyaguna way noo dadaaleen waa inaan shacabka ka dulqaadnaa cadowgan ku dul fadhiya dhaga badan uu hore u yiri jid iyo jahadiid waa inaan ummaddan ka dulqaadnaa oo ummaddu ay xorriyad hesho sida haddeerba ay xor u tahay maanta bakool looga xoreeyey cadowga oo ciidamada dawladda iyo AMISOM ay gacanta ku hayaan gacantooda ay ku jirto maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee laga qabsaday magaalooyinka iyo goobahaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay galeen dhulka keymaha ee ku xeeran magaalooyinka dadka qaarkood ayaa halkaasi ka qaxay balse caqabadda ugu weyn ee taalla ayaa waxa ay noqonaysaa in ciidamadan isku dhafka ahi ay amni buuxa halkaasi ka dhaliyaan iyadoo dawladda Soomaaliya looga fadhiyo in si degdeg ah ay maamulo u dhisto beeralayda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay raashin ka iibinaysa hay'adda WFP iyadoo ay hay'addu raashinkaasi u qaybinayso dadka Soomaalida ah ee ku tiirsan raashinka ay WFP bixiso qorshahan oo ay taageerayaan midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa dib loogu soo nooleynaya wax soo saarkii beeralayda warbixintan waxa inoo haya wariyaheena Maxamuud Ibraahim Cali barnaamijkan cusub oo taageero ka helaya midowga Yurub dawladda Austria iyo labada hay-adood ee cunnada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ka caawinayo beeralayda Soomaalida in ay sameeyaan horumar aan in dhow la arkin kadib 3 sano ka hor markii dalka Soomaaliya ay abaari ba'an ku fatay shir looga hadlayay arrimahan ayaa waxaa lagu sheegay in beeralayda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay WFP ka iibiyeen ilaa 200 metrik tan oo galey nadiif ah taasoo geyn doono meelaha dalka ee aan cunto ku filan lahayn wanaagga barnaamijkan uu leeyahay ayaa ka muuqata sida beeralayda Afgooye oo helay dalag fiican oo heerkiisu sareeyo sida uu sheegayo Luca Alinovi oo ah madaxa hay'adda FAO FAO is the organization which help the farmers, help the institution, the local institution. hay'adda FAO waxay caawinaysaa beeralayda iyo hay'adaha maxalliga si ay u horumariyaan wax soo saarka beeraha doorka hay'adda ayaa ah inay hubsato
in beeraalayda ay helaan tayeen iyo aqoon ay ku kubciyaan wax soo saarkooda si ay u buuxiyaan shuruudaha hay-adda w f b ee ay cuntada ku iibsato kaasoo heerar kala duwan marayo. beeraalayda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ah xudunta wax soo saarka cunnada ee soomaaliya ayaa 20kii sano ee ugu dambeeyey waxaa naafeeyey colaado iyo abaaro soo noqnoqday kuwaasoo waxyeello u geystay dalaggii beeraha. wasiirka beeraha ee dowladda soomaaliya cabdi axmed maxamed ayaa sheegay in soo noolaynta beeraalayda soomaalida ay kaalin muhiim ah ka qaadanayso dhaqaalaha dalka. inkastoo ay soomaaliya 20 sano ku jirta colaad, rootiga ama canjeerada saaran saxamada dadka soomaaliyeed waxaa badi soo saaray beeraalay soomaali ah. barnaamijkeenna waa inaan soo celinnaa wax soo saarkii beeraha, mana aha keliya beeraha ee waxay wax ka qabanaysaa wanaajinta dhaqaalaha iyo nabadda guud. beeraalayda soomaalida ayaa iyaga keliya aan doonaynin inay quudiyaan dadka soomaaliyeed, balse waxay kaloo doonayaan inay noqdaan kuwa u iibgeeya wax soo saarkooda waddamada kale ee gobolka. aad ayaan u faraxsanahay, waayo gallaydii laga keeni jiray dibadda ayaan joojin doonnaa. waxaan quudin doonnaa dadka soomaalida iyo weliba bariga afrika guud ahaan. haddii aan helnana caawinaad waxaan soo saari karnaa galley fara badan. soomaaliya ayaa waxa ay ku jirtaa muddo xasiloon, taasoo ay badi qayb ka qaateen ciidamada amisom oo dib u riixay ururka alqaacida. isla wararka la xiriira beeraha ayaan ku jirnaaye beeralayda falastiiniyiinta ee dooxada Jordan ayaa cabsi ka muujinaya roobyarida sanadkan jirta iyo weliba xayiraad ay Israel ku soo rogtay ilaha ay biyaha ka helaan. wariyaha VOA Scott Babb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Cujaan oo ku taala dooxada webiga Jordan. Cabdicaziis Xuseen ayaa inoo soo koobaya. halkani waa dooxada Jordan. dabayaaqada xilliga jiilaalka ayaa Xuseen Atiya oo beeralayda ka mid ah waxa uu eegayaa dalagiisa meel ku dhow magaalada Al-Cujaa ee daanta galbeed. ma uusan jeclaysan wuxuu arkayo. xaaladda haddaan ku jirno wax dalaga ma filayno, maxaa yeelay haddii aan waraab heli lahayn markii aan beernay, geedku wuxuu dhirir leekaan lahaa 1 mitir. roob yari ayaa qayb ahaan mas-uul ka ah, laakiin Xuseen waxa uu leeyahay mas-uuliyiinta Israa'iil ee halkaa maamula uma ogola inuu biyo ka helo webiga Jordan ee u dhow. tubooyinka waraabka ee beertu ma shaqaynayaan, maxaa yeelay ilihii biyaha ee magaalada way ingegeen. sidaasi oo ay tahay beeraha Israa'iil ee dariska la ah biyo ayay helaan, dalag fiicanna uu ka baxaa. beeraha magaaladu waxay biyo ka helaan bulaacado iyo biyo qabatimo ka yimaada il dabiici ah oo 2 bilood ka hor gurtay, sida uu sheegay duqa degmada Fahri Nuujaan. togan ayaa waraabiya deegaanada waqooyiga iyo koonfurta ka xiga Al-Cujaa. tacabka xaggoodu waa barwaaqo, laakiin halkan ninka falastiiniga ah waxa uu daawanayaa beertiisa oo tartiib tartiib u dhimanaysa. madaxa midowda beeralayda falastiiniyiinta Ramallah Daawud Xamuude ayaa wuxuu leeyahay Israa'iil ayaa xayiraad badan ku haysa beeralayda falastiiniyiinta, biyuhuba ha ugu darnaadeene. 1967 ilaa maanta Israa'iil ma aysan siin falastiiniyiinta xitaa hal shati oo ay ceel cusub uga qataan daanta galbeed, umana ogola beeralayda inay hormariyaan ama ay dayac tiraan ceelashii hore. xoolodhaqatada falastiiniyiinta ee halkan ku dhaqan sidoo kale roobyaridu way haysaa, qiimaha cunnaduna waa qaali. xayiraadda Israa'iil ku soo rogtay ee dhinaca ammaankaahna waxay u diiday inay xoolahooda daaqsiin u geeyaan meelo kale. maxamed Suweydi oo qowsaar ah sida aabihii waxa uu leeyahay idihiisii way sii weydoobayaan. 2 midood ayaanan horayn inay naga dhintaan ama aan iibinno oo aan wax kale gelinno lacagta. waxa uu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu furto dukaan ama uu shaqo ka raadsado deegaanada Yuhuudda. falastiiniyiintu waxay sheegayaan in Israa'iil ay isku dayeyso inay ku qasabto inay dhulkooda ka tagaan. tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in wax soo saarka xagga beeraha ee falastiiniyiinta halkan uu muddo sannad ahba uu ahaa mid hoos u sii socday.
magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa ka socda carwo caalami ah oo lagu soo bandhigayo noocyadii u dambeeyay ee baabuurta caalamka. Khubarada baabuurta ayaa sheegay in mustaqbalka dhow ay baabuurtu yeelan doonaan mashiino darawalka ka caawiya hawsha wadista baabuurka. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay wariyaha VOA-da George Butich waxaa noo soo koobaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan. mustaqbalka wadista baabuurta ee dadka hantida leh ayaa u ekaan doona sidan oo kale. shirkadda soo saarta naqshada baabuurta ee dalka Switzerland Rainspeed ayaa soo bandhigtay baabuur nooca raaxada ah oo leh kuraasi fiican oo wareegaysa iyo TV weyn iyo weliba qalabka bunka amaba kafeega lagu samaysto. madaxa shirkadda Rainspeed Frank Reindernest ayaa sheegay in baabuurkan uu raaxo badan yahay islamarkaana waxyaabo badan uu leeyahay. waxaan rabaa inaan seexdo oo yara nasto ama aan filimaan daawado iyo wararkaba. waana taa fikradda ka dambaysa baabuurkan. waa in maalin aad awooddaa marka aad ka caajistid wadista baabuurka inaad hesho wax aad isku maaweeliso. arrinta ugu xiisaha badan ayaa ah baabuur la soo bandhigay kaas oo caag balastig ah ka samaysan lagana soo saarayo meel sida madbacadda oo kale ah. waxaana soo bandhigtay shirkad jarmal ah oo lagu magacaabo edag. arrintan oo ah farsamo cusub ayaa waxaa faahfaahinaya Christoph Horvath. inaad baabuur samaysid adiga oo aan adeegsanaynin wax qalab ah runtii waa kacdoon cusub oo dhinaca warshadaha baabuurta ah. shirkadda edag ayaa sheegtay in naqshadan cusub ay u eg tahay qolofka diinka oo kale. shirkadaha kale ee baabuurta qaarkood ayaan iyagu ka fikirin mustaqbalka dheer. waxaana ka mid a shirkadda Skoda oo soo bandhigtay baabuur cusub oo u wanaagsan deegaanka iyo hawada. waxaana uu ku shaqaynayaa gaasta dabiiciga ah. waxaana suuqa la soo gelin doonaa 2 sano kadib. baabuurkani waxa uu sii daayaa wax ka yar 100 garaam oo kaarboona. shirkadda kale ee Volvo ayaa soo bandhigtay baabuur cusub oo nooca raaxada ah sida ay faahfaahinayso Cecilia Stark oo ah madaxa naqshadaynta ee shirkadda Volvo. wuxuu baabuurkani muujinayaa farshaxanka iyo dhaqanka dalalka Skandinaafiyaanka gaar ahaana dhinaca muusikada iyo arrimaha la xidhiidha. baabuurkan ayaa sidoo kale waxa uu wataa farsamo casri ah iyada oo uu qofku codkiisa ku maamuli karo. waxa kale uu leeyahay shaashad laga hago oo taabashada ku shaqaysa. waxaana ay khubaradu saadaalinayaan in dhowaan suuqyada loo iib keeni doono. wax soo saarkii dharka ee dalka Nigeria oo waqti ahaa mid bulaalaya ayaa burburay sanado ka hor iyadoo warshadihiina ay u daxalaysteen adeegsi la'aan. qaar ka mid ah shaqaalihii hore ee warshadaha ayaa qaba in dhar raqiis ah oo Shiinaha laga soo dhoofiyo uu burburka sabab u yahay. laakiin kuwa kale ayaa eedda dusha ka saaraya maamul xumo iyo dawladda oo taageeri weysay. wariyaha VOA Heather Murdoch ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada waqooyiga dalkaasi ku taala ee Kaduna. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysa. markii ugu horeysay muddo 20 sannadood ka badan ayay shaqaaluhu booqanayaan warshadii gabowday. matoorada ayaa daxalaystay qashin iyo calala ayaana daadsan halkan oo hore u ahayd mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn Nigeria. Wardam Sendek waa gudoomiyihii isbahaysiga shaqaalaha warshada dharka ee la xidhay ee Kaduna. Kaduna shaqo kale lagama helo. shaqooyinka kaliya ee laga helo waa dhugdhuglayda dadka qaada. qaarkood ayaana shil ku galay oo ku geeriyooday. badanaa dharka lagu iibiyo dalka Nigeria waxaa laga soo dhoofiyaa dalka China. mas-uuliyiinta warshada ayaana qaba in qiimaha hooseeya ee dharka China laga keeno uu suuqa ka saaray warshadaha dharka ee Nigeria. laakiin waxay ku nuuxnuuxsanayaan in musuqmaasuq iyo lacag la'aan ay mas'uul ka tahay baabaa. Cumar Maxamed waxa ku xigeenkii hore ee xogayaha midowga shaqaalaha warshada. ugu dambayntii warshadihii dharku mid ayay suuqa uga baxeen markii ay taageerada dawladda waayeen. Kaduna 2 warshadood uunbaa shaqaynaya. warshadan shaqaalihii hore waxay leeyihiin qiyaastii 9,000 oo qof ayuu mushahar hore uga maqan yahay. Kaduna oo kaliya waxa ay ku adkaysanayaan dharka warshadan haddii dib loo kiciyo inuu suuq helayo. waxaa dhacay maamul xumo. markii aan ka shaqaynayay wax soo saarkeennu dalab aan dhicin ayuu lahaa. dadkuna si fiican ayay u iibsanayeen. ma aanan dabooli karin baahidii xilligaasi.
waxay leeyihiin shaqaaluhu warshadaha suuqa ka baxay ee kaduna waxay keeneen saamayn aan ahayn dhaqaale oo keliya buundadan waxay kala qaybisaa magaalada kaduna oo ay koonfurta ku badan yihiin masiixiyiintu halka waqooyigana ay ku badan yihiin muslimiintu waxaanay caan ku tahay rabshadaha laakiin shaqaalihii hore ee dharka iyo qoysaskoodu waxay leeyihiin gacanka hadalka waxa uu ka dhashaa saboolnimada haddii dadku ay heli lahaayeen wax ku filan noloshooda may dagaalameen wax caawinaya male qof waliba nolosha ayuu la kacaa kufaya qof walibana meherad buu u baahanyay taasina waa sababta dagaalka keenaysa si waxaanu cunaanu uga raadsano kuwa rabshadaha maalgeliya shaqaalihii hore ee dharka ayaa dhinaca kala sheegaya inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ashkatada ah ee ay ka wadaan bannaanka warshada gabowday si ay xaqooda u helaan intaas ayaan ku joojinaynaa toddobaadkana barnaamijkii qubanaha VOA inta aan toddobaadka dambe dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo